asalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatu. door wanaagsan dhegeystayaal kusoo dhawaada warka duurnimo idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland. qodobada aad ku maqli doontaanna waxaa ka mid a madaxda ka qaybgalaysa shirka wadatashiga qaran arrimaha doorashooyinka dalka oo maanta la kulmaya guddiga farsamo ee arrimaha doorashooyinka. madaxweynayaasha galmudug iyo koonfur galbeed oo kulan gaar ah ku yeeshay magaalada muqdisho. urur goboleedka igad oo soomaaliya iyo kenya ugu baaqay inay qabtaan doorashooyin nabdoon. ciidamada xooga dalka soomaaliya oo howlgallo miina baarisa ka sameeyay deegaanka wisiil. maamulka hirshabeelle iyo hay-adda faw oo ka wada hadlay ka hortaga fatahaada webiga shabeelle. wararka dibaddana waxaa ka mid ah tanzania oo markii ugu horeysay ka hadashay xaaladda coronavirus. waa kuma warwaageedii maxaa u dambeeyay siyaasadda dalka? xaqiiq miyaa rabtaa mise been? xaqiiq ayaan raadinayaa. haddaba rediyo kismaayo ka dhegayso warar sugan oo xaqiiqda ku salaysan. waa hagaag dhegaystayaal mar kale isku soo noqod wanaagsan ayaan hawada idinka leenahay. waa duhurnimo talaada ah, taariikhdu waxay ku aadan tahay dhegaystayaal 29 bisha 6 ee Juun sanada 2021. intaasi aad maqasheen waxay ahaayeen qodobadii ugu door karoonaa warkayga duhur. haatan u diyaar garooba dhegaystayaal dhagaysiga qodobadii aad maqasheen oo intaasi ka faahfaahsan. madaxda ka qaybgalaysa shirka wadatashiga qaran arrimaha doorashooyinka dalka ayaa maanta la kulmaya guddiga farsamo ee arrimaha doorashooyinka. cabdulmajiid cabaas aadan fantastic ayaa inoo faahfaahinaya. shirka u dhexeeya madaxda dowladda federaalk ee Soomaaliya iyo kuwa dowlad goboleedyada dalka ka jira oo shalay ka furmay teendhada Afisyooni ee magaalada Muqdisho ayaa maanta galaya maalinkiisii labaad. shirkan oo uu shir gudoominayo ra'iisul wasaaraha xukuumadda xilgaarsiinta ee Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble ayaa waxa looga hadlayaa dardargelinta howlaha doorashooyinka iyo waxyaabihii ka hirgelay heshiiskii 27 May ee hanaanka doorashada dalka. madaxda ayaa shalay intii uu socday shirka isaga xog wareystay waxyaabaha u qabsoomay horumarada la sameeyay iyo haddii ay jiraan caqabado muddada bisha ahayd ay kala maqnaayeen kadib heshiiskii la gaaray. sidoo kale ra'iisul wasaaraha Soomaaliya injineer Maxamed Xuseen Rooble gudoomiyaha gobolka Banaadir iyo madaxda dowlad goboleedyada ayaa maanta si anbaqaadi doona qodobada kale ee muhiimka u ahay dardargelinta heshiiska laga gaaray qabsoomidda doorashada dhacaysa. warar la helaya ayaa sheegaya in shirka ay ka qaybgeli doonaan guddiyada doorashooyinka ee la magacaabay kuwaasi oo tababar ku saabsan howlaha doorashada uga socda magaalada Muqdisho ee caasimadda dalka. shirkan ka furmay teendhada Afisyooni ayaa waxaa ka qaybgalaya ra'iisul wasaare Rooble, gudoomiye Cumar Finish, madaxda dowlad goboleedyada Jubbaland, Puntland, Galmudug, koonfur galbeed iyo Hirshabeelle oo qadka Zoom-ka uga qaybgalaya isaga oo ku sugan dalka Turkiga. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada galmudug iyo koonfur galbeed ayaa kulan gaar ah ku yeeshay magaalada muqdisho. cabdulfataax cali maxamed daljir ayaa inoo eegaya. madaxweynaha dowlad goboleedka koonfur galbeed cabdicasiis xasan maxamed lafta gareena ayaa hoyga uu ka degan yahay magaalada muqdisho ku qaabilay madaxweynaha galmudug axmed cabdi kaariye qoorqoor oo booqasho ugu tegay. labada mas-uul ayaa ka wada hadlay xaaladda dalka, arrimaha doorashooyinka, sidii loo dadargelin lahaa iyo sidii wada shaqayn u dhexmari lahayd maamulada galmudug iyo koonfur galbeed. madaxweyne lafta gareena ayaa uga mahad celiyey madaxweynaha galmudug booqashada uu ugu tegay. madaxweynayaasha dowlad goboleedyada ee ku sugan magaalada muqdisho ayaa waxa ay yeelan doonaan kulamo duceedyo looga hadlayo xaaladda dalka, gaar ahaan arrimaha doorashooyinka. urur goboleedka igad ayaa Soomaaliya iyo Kenya ugu baaqay inay qabtaan doorashooyin nabdoon. maxamed ibraahim karaama ayaa inoo faahfaahinaya. urur goboleedka igad ayaa ka codsaday dowladda Soomaaliya iyo Kenya in doorashadooda soo socota ay u qabsoonto qaab habsami leh oo sidoo kale nabad ah. igad waxay ku ammaantay shacabka iyo dowladda Djibouti, Uganda, Ethiopia sida ay markaa u sameeyeen doorashooyin nabdoon oo habsami leh ayaa lagu yiri war murtiyeedka. golaha wasiirada igad waxay ugu baaqeen Soomaaliya iyo Kenya inay si degdeg ah u qabtaan doorashooyin nabdoon nidaamsan sida ku xusan jadwalka doorashooyinkooda. igad waxay bogaadisay madaxweyne Farmaajo, ra'iisul wasaare Rooble, madaxda shanta dowlad goboleed iyo gobolka Banaadir is-afgaradkii lagu soo afjaray khilaafka muddada dheer soo jiitamaya isla markaana loogu dejiyay qariirad loo maro doorashooyinka soo socda. ciidamada xoogga dalka Soomaaliya ayaa howlgallo miina baaris ah ka sameeyay deegaanka Wisiil
amaal cawil maxamuud ayaa inoo soo koobaysa. ciidanka dowladda iyo kuwa maamulka galmudug oo isugu jira military boolis iyo nabad sugid ayaa waxaa howlgal ay ka sameeyeen deegaanka wisil ee gobolka mudug oo maalmo ka hor ay weerar ku qaadeen argagixisada al-shabaab. ciidamada ayaa howlgalka ujeedkiisu ahaa miino baaris ay ka sameynayeen gudaha iyo duleedka deegaanka wisil oo uu ka dhacay dagaal xoogan oo u dhexeeyay ciidanka daraawiishta galmudug iyo al-shabaab kaasi oo geystay khasaaro. saraakiil ka tirsan ciidanka hogaaminayay howlgalka ayaa sheegay inuu socdo howlgal dhulka miinooyin looga baarayo isla markaana la adkeeyay amniga wisil ee gobolka mudug ayna socon doonaan howlgaladani. dowlad goboleedka hirshabeelle iyo hay-adda faw ayaa ka wada hadlay ka hortaga fatahaada webiga shabeelle. maxamuud saciid axmed fawzi ayaa inoo faahfaahinaya. magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan waxaa maanta kulan ku yeeshay wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare oo ay weheliyaan guddoomiyaha gobolka hiiraan, mas-uuliyiin kale oo ka tirsan hirshabeelle iyo mas-uuliyiin ka tirsan hay-adda cunnada iyo beeraha adduunka ee faw. kulankani oo saacado badan socday ayaa waxaa looga hadlay dardargelinta howlaha mashaariicda biyo-xireenka webiga shabeelle ee deegaanada hirshabeelle gaar ahaan magaalada beledweyne. wasiir ku-xigeenka wasaaradda beeraha hirshabeelle maxamed bashiir qaasim daqare ayaa sheegay in kulanka oo kusoo dhammaaday afgarad iyo in mashaariicda biyo-xireenka lasii wado si loogu guuleysto. sidoo kale waxa uu hadalkiisa uu intaasi ku daray in la xaliyay murankii ka dhashay muuqaal dhowaan baraha bulshada lagu baahiyey oo guddoomiyaha gobolka hiiraan uu eedeyn ugu jeediyey hay-adda faw. maamulka hirshabeelle ayaa wada dadaalo ku aadan sidii magaalada beledweyne ee xarunta gobolka hiiraan looga baajin lahaa fatahaadaha kusoo laablaabtay. waa hagaag dhegaystayaal halkaad warkaasi kala socotaan waa idaacadda radio kismaayo codka dowlad goboleedka jubbaland. markan intaanan u gudagelin wararka dibadda kusoo dhawaada dhegaystayaal xubintii ciyaaraha ee warka duhur waxaana la diyaara daawud cusmaan cali alghazaala. aad baad mahadsantahay Kamaal. duhur wanaagsan dhegeystayaal saaxiibayaal kusoo dhawaada xubinta ciyaaraha warka dur waxaan kusoo qaadan doonaa Real Madrid oo farta ku fiiqaysa bedelka Varane kadib macallinka Ancelotti oo isha ku haya xidig u ciyaara kooxda Leicester City wareedi ayaa qoraya saxaafadda Ingiriiska sheegay in macallinka cusub ee Real Madrid Carlo Ancelotti oo xiiseynaya bedelka Varane kaas oo laga yaabo in ay ku helaan kooxda Leicester City kaas oo ay wiilka daada yar ee lagu magacaabo Fofana uu isha ku haya macallinka Carlo Ancelotti. wararka qaar ayaa waxay sheegay in Real ay u badhigi doonto laacibkaas cusub bedelka in ka dhigi doonto bedelka Rafael Varane ee daafaca uga ciyaara kooxda Real Madrid kaas oo doonaya inuu ku biro kooxda Man United. Daily Star ayaa haatan waxay sheegaysaa macallinka Carlo Ancelotti uu maamul kooxda farta ugu fiiqayo bedelka Varane kaas oo joogo horyaalka Ingiriiska. macallinka Carlo Ancelotti ayaa waxa uu sheegay inuu yahay bedelka xidiga Leicester City oo ciyaara ee daada yar ee Fofana kaas soo bandhigay heer ciyaareed cajiib oo aad u wacan. laacibka Leicester City ayaa waxa uu ku fadhiyaa 35 milyan oo euro haddii la doonayo in la iibsado xidigaasi. macallinka Carlo Ancelotti ayaa markaa waxa uu doorbidaya haddii Varane uu ka tagay in laacibkaasi loo soo iibiyo oo loo keeno. xalana kulamadii waxaa la ciyaaray Euro 2020 Croatia 3 gool iyo 5 gool, Spain ayaa ku garaacday Faransiiska 3 gool iyo 3 gool, Switzerland ayaa la galan oo waa qaybihii dambe ayaa laga badiyay oo Faransiiska xalay waa la reebay. caawana waxaa jira kulamo England iyo Germany ayaa wada ciyaari doona. dhan kale Copa America ayaa la ciyaaray Bolivia iyo waliba Argentina 4 gool iyo gool. Argentina ayaa ku adkaatay Uruguay hal gool ayay kaga badisay Uruguay. xubintii ciyaaraha warka duhurna saaxiibayaal dhageystayaal duhurnimada inta ayaa kusoo koobiya aan dib idin kugu celiyay qaybaha warkii naga horay waliba Kamaal Keenan.
markan wararka dibadda dowladda tanzaniya ayaa markii ugu horeysay muddo sanada si buuxda shaaca ooga qaaday xaaladda cudurka covid-19 ee dalkaasi inta lagu guda jiray shir jaraa'id oo ay ku qabatay magaalada Dar es Salaam ee haweeneyda madaxweynaha ka ah dalkaasi Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa sheegtay in kiisas cusub oo gaaraya ilaa iyo 100 laga helay dalkaasi Tanzania kuwaasi oo wejiga saddexaad ee cudurkani kasoo aafeeyay dunida oo idil waxay intaasi ku dartay Samia Suluhu Hassan in 100,000 ee toddobaadkani ka mid ah in 100 bukaan 70 ka mid ah ay haatan ku xiran yihiin aaladda neef markaasi kaalmeynta ee qofka ka caawisa neef qaadashada Tanzania ayaa joojisay soo saarista xogta cudurka COVID-19 bishii May ee sanadkii hore 2020 ka gadaal markii madaxweynihii hore ee John Magufuli uu sheegay in dalkiisa aanay ka jirin wax ku saabsan cudurka coronavirus madaxweynaha Tanzania Samia Suluhu Hassan ayaa qaadatay waddo kale oo ay ku wajahayso cudurka COVID-19 oo ka duwan madaxweynihii hore ee nidaamkii uu kula dagaalamayay cudurka ilaa intii ay la wareegtay xafiiska tan iyo bishii Maaj ee sanadkani 2021 dowladda Tanzania ayaa sheegtay inay ku bixin doonto $470 milyan si ay uga soo iibin lahayd dadkeeda agabka dadka ka caawiya neefsashada marka uu haleelo cudurka COVID-19 iyo kaalmeynta sidoo kale ganacsiyada oo uu sida markaasi xun u saameeyay cudurkani safmareenka ee COVID-19 ugu dambeyntiina dhageystayaal maxkamadda ugu sareysa dalka Koonfur Africa ayaa madaxweynihii hore ee dalkaasi Jacob Zuma ku xukuntay 15 bil oo xabsi ah kadib markii ay ku heshay dambi ah inuu ixtiraam darro ku sameeyay amar ka soo baxay maxkamadda oo ahaa inuu hor yimaado si loo dhageysto eedeymaha loo haysto madaxweynihii hore ee Koonfur Africa Jacob Zuma waxaa ka mid ah musuqmaasuq iyo fadeexooyin dhaqaale intii u dhaxaysay sanadihii 2009 ilaa 2018 uu ahaa madaxweynaha Koonfur Africa go-aanka maxkamadda dastuuriga ah ee ku amartay xariga Jacob Zuma ayaa yimid 5 bilood kadib markii maxkamaddu ka codsatay inuu hor yimaado si wax looga weydiiyo musuqmaasuqa lagu soo eedeeyay bishii February waxaana kiiska Jacob Zuma horkacayay ku-xigeenka xeraalyaha guud ee Koonfur Africa sida qortay wakaaladda wararka ee Reuters New York Times ayaa qortay idana in Jacob Zuma si geesinimo ku jirto uu diiday amarka maxkamadda madaxweynihii hore Koonfur Africa Jacob Zuma kaliya ma diidin inuu maxkamadda hor yimaado balse waxa uu kale u diiday in uu markaasi ku gacan sayray jiritaanka kiiskaasi inuu isdifaaco warkii duuraad kala socoteen idaacadda radio Kismaayo codka dowlad goboleedka Jubbaland dhageystayaal xilligani waa nageynta